waxaa halkan u imid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed. aniga markaan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen oo wada saaran. fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen waad dhibaatooteen carruurtiinii iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad waa u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan. sidaas darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo ka dhaqanayna arrintaas inaad nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaad tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka. sababtaas saa u leeyahay waxaa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inay carruurtiina wax barato inaad isbitaalaadka tagtaan inay hooyooyinka soo umulaan waa dad annaga nagu dhex jiro. dadka inaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeena ka wado waxaan rabaa dad fara ku tiris ayaa guryahooda ku qarinayo dad fara ku tiris ayaa ogo meelaha dhibka laga soo ogo nala shaqeeya hadda shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas'uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin hal fari fool ma dhaqdo. waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga. ma ahan mustaqbalkeennii carruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibka u maraan 4 qofood oo nabadiid ah. marka idinka ayaan rabaa inaan mas'uuliyaddeeda ku soo wareejiyo. wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin. qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman in la dhammaystiro. sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo ay dhinacayna istaagaan oo ay noo soo sheegaan dadka dhibka wada sida aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo. saan u sheegay waa ku soo celinayaa waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha Allah markuu ugu soo horeyso ee aan hubino markuu ugu horeyso aan hubino inay xasiloon tahay nabadii loo furay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidamada walaalaha iyaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacmo ku dhinto qaraxyada lala beegsado oo ah inaan u wada danqano oo ah dadkiinii wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii inaad maxaa la dhahaa aan halkan uga soo jeedinayo mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen halka iyo deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado. waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahad celinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer raalli ahaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad nalana shaqeeya. waa mahadsantihiin walaalayaal. shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya. hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah 3 lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE.